بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaan joognaa hotel Dikale magaalada Muqdisho waxaana aynu ka qayb galnay xafladda furitaanka mashruuc loogu taageerayo walaalaheen abaartu ay heleeshay Soomaaliya mashruucani waxa fulinaya jamciyadda Tadaamun waxaana maalgelinaya xarunta gargaarka bini'aadanimada King Salman iyadoo la fulinayo طبعا warbixinada kala duwan ka soo baxay هذا عالمية iyo باقي ay dawladda federaalka Soomaaliya soo saartay ayaa mashruucani u yimid waxaana rajaynaynaa in dhawaan uu bilaaban doono gaar ahaan bisha aan ku jirno hadafka iyo yoolka mashruuca uu leeyahay waxa weeye in uu gaaro in ka badan 254,000 oo qof oo ku kala nool gobolada abaartu ay saameysay waxa jamciyadda Tadaamun la shaqeyn doontaa guddiga gurmadka abaaraha iyo hay'adaha kale kala duwan ee qaabilsan la tacaalka abaaraha waxaan u mahadcelinaynaa wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka waxaan u mahadcelinaynaa sidoo kale gudoomiyaha guddiga abaaraha ra'iisul wasaare ku-xigeenka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Mahdi Guuleed iyo wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka wasiir Khadiija Diiriye iyo dhammaan guddiga gurmadka abaaraha iyo cid walba ka shaqeysay mashruucan inuu hirgalo waxaan mahad gaar ah sidoo kale u celinayaa safiirka boqortooyada Sacuudiga al-Ustaad Ahmed bin Mohamed al-Muwallad oo isagu maanta la joogay iyo madaxda kale ka socotay hay'adaha kale caalamiga ah waxaan rajaynaynaa maadaama inuu nahay hay'adda fulinaysa anagoo matalayna bulshada reerka Soomaaliyeed inaynu insha Allah taala gaarsiin doono dadka kala duwan ee loogu talagalay gurmadkan inuu gaaro waxa xusid mudan dadka abaartu ay hayso in ay inta ka badan yihiin balse bulshada Soomaaliyeed iyo isku tashigeeda iyo iskacansiinteeda inuu asalka yahay waxaan rajaynayaa insha Allah taala waxa weeye taageeridda kala duwan ee walaalaha nooga imaanaya caalamka ah in ay si sax ah u gaari doonto aan iska kaashan doono guddiyada kala duwan aad baad u mahadsantihiin